faafayno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidanka Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Dhammays ee gobolka Mandera waxaana weerarkaas oo ahaa mid qaraxyo ku bilowday ugu dambeyntii uu isku bedelay dagaal toos oo dhexmaray ciidamada Kenya iyo sidoo kale dagaalamayaasha ururka al-shabaab waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac dagaalamayaasha al-shabaab ayaa qoraal ay ku baahiyeen barooda internetka waxa ay ku sheegeen in dagaalkaasi ay ku dileen askar fara badan oo ka tirsan ciidanka Kenya isla markaana ay ka gubeen gaadiid dagaal oo aad u badan hase yeeshee qoraalkooda kuma aysan xusin tirada askarta Kenyaanka ay ku dileen dagaalkaas saraakiisha ciidanka Kenya ilaa haatan kama aysan hadlin weerarkan dagaalamayaasha ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidanka Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Dhammays waxaana weerarkan u imaanaya iyadoo saacadii la soo dhaafay ciidamada Kenya ay howlgallo ka dhan dagaalamayaasha ururka al-shabaab ay ka wadeen deegaanadaasi maahan markii ugu horeysay dagaalamayaasha ururka al-shabaab ay weerar noocan ah ku qaadaan saldhigyada ciidanka Kenya ay ku leeyihiin deegaanada hoos yimaada gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaana marar fara badan ay sidoo kale weerar gaadma ku qaadeen saldhigyada ciidanka Kenya ay ku leeyihiin deegaanada hoos yimaada gobolka waqooyi bari iyagoo weeraradaas intooda badan u adeegsada minooyin ay ku aasaan wadada dhexdeeda iyo sidoo kale weerar toos ay ku qaadaan saldhigyada ciidanka Kenya